waxay wallaahi oo billaahi oo kitaabkaas waxaan arkayay ninkan la eedeynayo oo daaqadaa ka degay oo sacuudiyo istaag qoriga dhig intaas markuu yiri aan daaqada la soo wareegay xabad buftirna waan maqlay ninkii meedana waan soo dur istaagay aniga waa ismaaniis baqay waxa igu wallaahi oo billaahi inaan arkayay ninkaas oo daaqada furay oo leeyahay sacuudiyo istaag kadib markaan soo degana aan dhanka kala soo wareegsana xabadina bush ay dhahday ninkii oo meedna aan soo kor istaagay la yiraahdo maxamed aadan xaashi waxaan ku dhaaranayaa kitaabkan quraanka inta aan maqlaayay iyo inta aan arkayay maadaama oo goobjoog ahaa waxay dhagtaydu maqlaysay sheekha oo lees hadegin iyo ninkan oo qoriga ninka dhigiri iyo xabad dhacday maqlitaan intaas waa maqlitaan aan maqlaayay goobta markaan imid ninkii oo meyd ah oo yeelaan oo imid iyo ninkan oo gadaal u baxay oo qoriga laga qaadayo kana free waxay u kalifay askari buu ahaa xaafadii ugu yimid waan shaqaansiiyey qori buu igala goostay muddo 8 bilood muddo 6 bilood mise 5 bilood meelahaasa baa waxa weeye ka dacwoonayo lahaa ha laga siiyo qorigii ugu dambeysay shalay casarkii ugu dambeysay baan taliis kaga dacwoonayay marka arrinta xoolo laga qaban waay xalay toole markaan is aragnayna waxa weeyaan macnaha bahashu xabadu markaan aan ku ridayay meel habeen meel mugdi ahayd waxaan rabay inay kor ka marto laakiin qoriga ima qiyaastan xilligii inuu ka koreysay iyo inay la sanayd waayo in kastoo meesha mugdi ahayd marka saas dil ku dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim maxkamadda ciidamada Jubbaland waxay u fariisatay kiis dil ah xiraalinta ay ku soo eedeysay Cabdirashiid Cabdinaasir Maxamed 30 jir ina Shamis Axmed Yaasiin ku dhashay dhobley ka tirsanaa staafka Sheekh Daahir wuxuu dil bareer ah u geystay marxuum Maxamuud Maxamed Sheekh oo ka tirsanaa ciidanka madaxtooyada taariikhda markay ahayd 12 bishii sanaad 2020 saacaduna ahayd halka saac ee habeenimo goobtana waxay ahayd kontaroolka laga galo madaxtooyada maxkamaddu markay dhageysatay eedda xiraalinta markay dhageysatay qiraalka eedeysanaha markay aragtay cadeymaha markhaatiyaasha oo dhammaystiran markay aragtay qodobka 434 iyo aayadda 138 suuratul baqara waxay maxkamaddu xukun dil ah ku riday Cabdirashiid Cabdinaasir Maxamed taasoo ah qisaastii marxuum Maxamuud Maxamed Sheekh Cabdullaahi wabillahi tawfiiq